shaqaalaweynaha wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka mid yahay agaasimaha guud ee shaqaalaweynaha wasaaraddaasi ayaa maanta waxa ay ka bilaabeen mashruuca banka Wajaale. wasiirka iyo waliba shaqaalaweynaha ayaa waxa ay ku hawlanaayeen sidii ay dalagga kala duwan ee ka baxay halkaasi ay uga guri lahaayeen geedaha kala duwan ee waxyeeleynaya dalaggaasi. ugu horeyn baa waxaa halkaasi ka hadlay madaxa mashruucaasi Mawlid Xasan Cabdi iyo waliba qaar ka mid ah shaqaalaweynaha wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo muujiyay dareenkooda ku aadan maanta hawlgalkan ay ka wadaan halkani iyo waliba maamulka gobolka Gabiley iyo waliba ka degmada Wajaale. waa Mawlid Xasan Cabdi maarayaha guud ee mashruuca banka Wajaale. runtii mashruucu sidaynu wada ogsoonnahay waxa uu ka kooban yahay 5,600 oo hektaar annaga oo haddaba fulinayna siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland garwadeenka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gaar ahaan fulinayna hadafkayagii iyo ballanqaadkii wasaaradda beeruhu ay ballan qaaday. waxaanu halkan ka bilownay 23 bishii Afraad ee 2018 qodaal aan wax soo saar oo aanu hadda aan wadno ilaa 1,500 oo hektaar sidaanu ballan qaadnay. shinnida hore waxaanu ugu talagalnay inay noqoto 1,000 hektaar tadambana waxaanu u dhiganay inay noqoto 500 oo hektaar. guud ahaan intii imika aanu beernay waxa ay maraysaa 705 hektaar. waxa aanu beernay boqolkiiba 90 waxa weeye waa haruud, inta kalena waxay isugu jiraan sinsin, digir iyo galey. beerihiina waxaan marayaan baaqbaaq insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay roob siiyo. ugu dambeynna wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Mudane Axmed Muumin Seed ayaa isna ka hadlay hawlgalkaasi baaxad leh shaqaalaweynaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo horkacaya wasiirku ay ka bilaabeen mashruuca banka Wajaale. iyagaasma waaxidada wasaaradda iyo dhammaan hawlwadeenadii wasaaradda ama noqoto haweenkii iyo rag bay waanu dhannahay maanta halkan saaq waxaanu nidhi 8 subaxnimo. shaqada aan u nimidna waxa weeye inaanu gudano waajibaadkii aanu qaranka u haynay madaxweynuhu noo igmaday wasaaradda beer ahaan. runtii sidaad ogtihiin wasaaradda beeruhu waxay wadaa saddex mashruuc oo mashruucan kow ka yahay oo mashruuca Wajaale oo hadda iminka aynu ku sugannahay. halkan waxaa ka beeran ilaa 705 hektar sida horey aanina warbixinta inagu siinay. 705 hektar waxay iskugu jiraan galey iyo haruur iyo sinsin iyo qamadi iyo digir bay iskugu jiraan. xaaxina sida uu agaasimaha guud saaka inoo sheegay iyadana way socotaa maanta oo jirideedii baa lagu jiraa. beerina way socotaa oo iyadna maanta waa la diyaarinayaa. labadana bisha 7 dhexdeeda ayaanu beeri doonaa oo shinnida dambe ah oo labada cimil ay kala duwan yihiin saan hore u sheegnay. mashruucan ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed iyo waliba wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ay doonayaan mustaqbalka dhow in lagaga marmo cuntooyinka kala duwan ee dibadda laga soo waarido kuna filaadaan dalagga kala duwan ee ka soo baxa dalka Soomaaliland. Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.